wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cali maxamed waran cadde oo ku sugan magaalada Burco ayaa waxa uu si rasmi ah uga hadlay arrimaha sahminta shidaalka ee laga wado gobolka Togdheer. waxa uu tilmaamay wasiir waran cadde in aan dawladda Soomaaliland aanay u dulqaadan doonin cid kasta oo damacda inay caqabad ku noqoto dhaqangelinta sahminta shidaalka. kale uu ballan qaaday in cid kasta oo ku dhaqan deegaan ay ka socoto sahminta shidaalku ay heli doonto xuquuqdeedii asaasiga ahayd isla markaana la tixgelin doono tabashooyinkooda. marka runtii ma dadku ma diidana qodista iyo suurtaga ma jiro laakiin duruufaha jira waxa weeyaan labada blog ayaa midna imka la wadaa marka dadkii deegaanka ka shaqo galay blogga labaadna inuu dhawaan bilowdaba loo baahan yahay iyana sida loo qeybiyo runtii anigu soo jecelayn qaybta noocaas laakiin haddana sidii hore loogu qeybiyo waxa labada blog in marba qolada deegaanka meesha laga shaqeynay ay shaqooyinka yaryar hoose yeeshaan. marka waxa muuqatay in labadii blog ay isdhex galeen oo dadkii sugayay blogga dambe surveygan hore imika uu soo galay halkaana ay u qaateen in muxuu ahaayay iyada oo aan shaqooyinkii wax laga siinin dabeedna ay kii labaadna la bilaabayo. marka arrinta runtii waanu iska aragnay shirkadii dhinacan galbeed bariga waday qoladii barigana waanu u yeernay marka si loo eego loo kala xadeeyo labada blog oo si aan dadkii deegaanka aanay isugu qabsan labadii blog waanu imika u yeernay marka inaan berita tagno meesho la kala xadeeyo labada blog ay kala cadaadaan oo deegaan waliba halkiisa ku sugo markay soo gaadho baan wadnaa oo wixii khaladana meesha ka saaro hadii la yiraahdo. Saacatul wasiir ka dawlad ahaan kaalin baad leediin shirkadda sahminta shidaalka wadana role bay iyaduna leedahay bulshaduna role bay leeyihiin shirkaddu dadku marka way taban karaan waxyaabaha qaar shirkadda u maraya waxyaabaha qaarna idinka mas'uuliyadeedin saaran tahay khayraadka dalka iyo ka mas'uul horta qaranka ka mas'uula ilaahay ka soo dalka qaranka ka mas'uula haduu khayraad yahay haduu dad yahay haduu ciri yahay haduu bari yahay haduu xuduud yahay dhamaan mas'uuliyad waxay saaran tahay dawladda waxa la doonayaa in la hirgeliyo waxaba dhici karta in dad ka hor yimaadaan intaanay baahidoodii ka hadal ilaadan shidaal lama boqodi karo dadkaas qaabkiibadigana ku wajahaysan taas ma dhici karto dadku hore u ogaaneen dawladdu fasaxday la qodo shidaalka wana dantooda waa ogtiinoo dalkeena dhibaatada dhaqaale ka taagan dadka shidaalada u soo baxeen halkay marayaan waa la ogyahay marka dadku noloshooda laga shaqeynayaa ninna laga aqbali maayo noloshiisa soo taago laakiin waxyaabo tabashooyin oo midalan tuulooyinka qaar tabanayaan ay jiraan oo laga gaabiyay wixii ay qeyrkood qabeen wala daryeelay dadka laftiisa waa dawladdu waxay dhinac walba iyadoo way ilaalinaysaa cadaaladda ilaalinaysaa dadku inuu xaqiisa helaabay waxa qeyrkood la qabay ilaalinaysaa in loo sinaado marka dadkana waa la ilaalinayaa cid laga aqbalayo inay taado lama qodi karana ma jirto laakiin marka intaan anagu ka fahmno waxa weeyaan tabashooyin tuuladana waxba la siiyay tuuladana waxba lama siinaa marka in laga siman wixii awoodahay ay shirkadu leedahay baa waajiba cid kale ee ka hortimaada iyadoo lama qodi karo taas waxay u taala dawladda mas'uulka waana talaabo adagna laga qaadaya. Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.